بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد سعيد محمد. waxaan muuqaalkan u soo duubay si aan ugu faa'iideeyo asxaabta ama dadkan jecel inay bartaan Excelka. waxaan soo gelin doonaa ku bilaabi doonaa casharkan sida loo soo saaro natiijada imtixaanka ama exam resultska iyo waxyaalo ku saabsan yahay xagga ayaan ku arki doonaa, laakiin waxaan rajeynayaa wixii talo iyo tusaale ah in lagu soo gudbin doono lambarada hoos ku qoran gmail-ka kan iyo waxa weeyaan sidoo kale inaad like saarto, inaad comment ka bixiso markasta aad daawato muuqaalka kan. waxaan kaloo ku baraarujinayaa dhammaan cid kasta oo aqoon leh inay u faa'iideeyaan walaalahooda. anna insha Allah waxaan ballan qaadayaa wixii karaankeyga inaan soo gelin doono YouTube-ka si aan ugu faa'iideeyo walaalahayga aan isku cod ka nahay meel kasta ay joogaan cidii aan wax ku dhaamo. waayahay waxaan bilaabaynaa casharka. casharka wuxuu ka kooban yahay qaybaha kan kala duwan. haddaan soo koobto qaybta tan oo ah waxa weeyaan imtixaanka sida loo soo saaro natiijadiisa. halka waxaa inoo ku qoran dad badan ayaa inoo ku qoran. dadkan badan waxaa la soo saarayaa natiijadooda imtixaanka sida DOS-ka, Windows-ka, Word-ka, Excel-ka, Access-ka, Result-ga. sidoo kale waxaa la soo saarayaa in celceliska totalka la soo saaro. iminka totalka uu soo saaran yahay waan baabiinaynaa. waxaan rabnaa markaa inaan dib u soo saarno. marka la rabo in total la soo saaro waxaa muhiim ah in la magacaabi karo cell walba xisaabtiisa. tusaale kontonkaas iminka meesha uu ku jiro waxaa weeyaan Z3, marka waxaa la oran karaa C3 ayaa kontonkaas ku jira. 78 waxaa ku jirtaa D xagga marka laga eegana 3D3 ayay ku jirtaa. waxaad markaa qoraysaa halka ayaad iman meesha aad total ku soo saaraysid waxaad leedahay equal sida caadiga ah oo ah codsi, dabadeedna functionka aad ku shaqeynaysaa sum weeyaan, macnaha total weeye. hoostan haddii aad ku aragto markaa magacyada tan waxa weeyaan inaad saxan tahay ay ku sheegaysaa halkaas sum ay saa u qoranto. ma sum if baad ula jeedaa, ma sum ifs baad ula jeedaa. marka waxaad leedahay bil ayaad furin, dabadeedna waxaad leedahay meesha ugu horeysa aad taabinaysid waxa weeyaan C3 oo ah xisaabta ugu horeysa meesha ay ku jirto. kadib waxaad leedahay up to oo u dhiganta shift 2 dhibcood ama noqdateynka yar oo macnaheedu yahay ilaa meel hebla. meesha u dambaysa xisaabta ku jirto waa access-ka oo ah G3. marka waxaad qoraysaa G3, dabadeedna line blue ayaa isku xidhay dhammaan meeshii la rabay in xisaabtu laga raadiyo ama function-kan sum ah lagu fuliyo. kadib waxaad leedahay bil ayaad xidhin shift iyo 0. bisha markaad xidho bracket-kaada madow ayaa isku xidhay. waxaad leedahay markaa enter si aad u hesho jawaabta waxaa noqotay 409. si markaa dadka hoose aad u soo saarto ma baahnid inaad mid walba u adeegsato qaacidadii hadda, laakiin waxaad samayn kartaa hal mar ayaad checksin xisaabta soo baxday, dabadeedna waxaad ku jiidin mouse-ka ayaad ku jiidin calaamadda air blasta markay kuu soo baxdo waxaad heshay natiijooyinka oo iska dhan. waayahay haddii aan si kale isku dayno oo ka fudud inaynu ku soo saarno, halka ayaad checksin kadib waxaad leedahay equal xisaabta oo loo geeyey mouse-ka ayaad ku dhufan, ta ku xigta oo loo sii geeyey, ta ku xigta oo loo sii geeyey, ta ku xigta oo loo sii geeyey, tan ku sii xigta, dabadeedna 409 sidii tii hore ayaynu helay. kadib calaamadaas ha ku jiidin waayo hadhayn ayay sheegaysaa, taas ha ku jiidin waayo inaad qaado selka ayay sheegin, tan un ayaad ku jiidi kartaa jag simply taana waad heshay. waddo kale haddaynu isku dayno inaan kusoo saarno waxaad leedahay meesha un ayaad jagsiin, kadib waxaad leedahay sum waxaa la auto sum. marka auto sum ayaad laba jeer ku dhufan, natiijadii si degdeg aad ku heshay, kadib waad soo saartay. halka ayaan kusoo koobaynaa qayb totalka iyadoo inoo socoto average-ka sida celceliska u saaraysid, bonus-ka ama gunada si aad ugu daraysid, iyo result maxsuulkiisa iyagoo formulooyin dhaadheer la adeegsan doono qaybtood. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.